ahaa 15 bishan Maajo waxaan halkan idinku sheegnay in uu yimid guddoonka soo cafwan waxaa inoo goobjoog ah xildhibaano 200 ayaa fadhiya waana shirkana waa fadhigana waa inoo furan yahay sidaan 15 bisha Maajo aan halka idinku sheegnay guddoonka wuxuu idinku wargeliyay in uu maanta guddoonka soo gaaray motion kalsooni kala noqosho ah oo xukuumadda oo ay saxiixeen 93 xildhibaan ay soo gudbiyeen ayaa jiray kadib markaan hubinay in uu waafaqsan yahay qodobada iyo heer hoosaadka iyo dastuurka 69 oo waafaqsan aan aragnay waan idinku wargelinay waana idin qaybshay waxaan siinay sida uu xeerkayga dalbanayo in 5 maalmood shaqo oo ay ka soo wareegto ka bacdina loo fariisanayo maanta waa mid aan u balansanahay oo aan ku jirin jumcaha marka 15 baa ahayd 22 maanta waa 5 maalmood shaqo oo sida uu nafarayo xeer hoosaadka iyaga mudanayaal mooshin la keeno ma aha wax ugub ah ما هو عصب وواح صجري إلا أنتي أي جمهورية الصومالية ديالتي قلة أو حلبانا قرن أي كهيريان أرمها أما كوه جامية سياسة الدلك يلوم علينا يو معمولك الدلك من أقوله متكن كوجودن بينا معها ولين والجري دونتا موشن وإيمان دونا وايو موشن كأوحويان حق ليه هي حلبانك وحق ليه حلبانك oo uu dow u leeyahay in uu ku toosiyo arrimaha dalka iyo maamulka iyo maareynta siyaasadda lagu hagayo dalkayga waa agab dastuuri ah oo gacanta ugu jira xildhibaanka loona baahan yahay inuu adeegsigiisii iyo markuu adeegsanayo inuu aad uga fiirsado iyo markuu soo gudbinayo mooshinka isaga mana aha mid lagu eedayn karo ama lagu ceebayn karo xildhibaanka inuu mooshin keenay ama mooshin kaga noqdo ama mooshin dib u dhigta waa arrin weecdi ah dastuuri ah oo aan inkiraad lahayn xeer hoosaadka iyagana uu nidaaminayo hase yeeshee waxaa weli qabyo ah marba markii oo mooshin la keeno waxbaa laga bartaa arrimo oo daldalola soo baxa meelo oo dhaliilaha soo baxa waxaa ayagana loo baahan yahay in dib loogu noqdo in casharada laga bartay khibradda laga helay loo gudbiyo heer hoosaadka guddiga aan u samaysanay inay soo darsaan haddana golaha la keeno weli la sii toosiyo dokumentiga oo muhiimka ah oo annaga aan dhexdeeda isku dhaqno mooshinkaa markuuna soo gaaray intii tabartayada ah waxaan ku dadaalnay inaan dhexdhexaad ka ahaano aan dhanna aan u janjeersanin oo aan xildhibaan walba xaqiisa iyo xasaanada uu leeyahay dastuuriga aan siino waxaa markaa intii oo 5 maalmood lagu jiray la soo gaaray 93 xildhibaan ee saxiixday markii hore keentay in qof xildhibaan ay warqad u keeneen ay kaga noqonayaan ilaa 55 ayaa ilaa saakadan aanu haynay oo ka noqotay marka 93 meeshii ahayd waxaa ka soo haray 38 xildhibaan hadda markaanu nimid waxaa raalli ahaada shacbiga daaya shacab ma rabno mashaakil ma rabno aan xildhibaannimo si raalli ahaada aan idin dhammaystiro xildhibaan yaasiin xildhibaan gaarane raalli ahaada xildhibaan yaasiin raalli ahaw ma inaan warbixin idinka sii waxna soo gaaray oo dhan idin sheegaa fiican marka saa daraaddeed ayaa maanta aan isugu yeernay in marta arrinkaasi laga hadlo waxaa haddana saaka na soo gaaray 13 xildhibaan kale oo iyagana yiri mooshinkii waa kala noqonay oo dadkii oo sponsorska ahaa ay yiraahdeen 13 xildhibaan ayagana ka noqdeen
أنا وحن آمسنا هاي برلمان كان قفاهان وحن آمسنا إن قولها كان ويهاي قوله أود وله لمان وحلا وحيد مشكلة أو دل كان كساسن أما أرمها دل كان سكر سوى عرق ليسن تهاي كي حلين لا إنه يهاي وكرتيد اللي أنا آمسنا سادراد ديانا لا يرسل برلمان كان هو هيئة كلية أنو لنا هاي وأن دل كان كتوسين كرنو مركتوسين توا أهم مهمة ما نقول معنا إن مركتا كوح قول اللي سكت لنا يوكلنا نقول لك من أم عاطفة إذا قادم سيريس إن أمروا بأن أفير إنه أرمها أو بوشنا الكسامس سادرات هل أجندة أنو لهين مانت أجندة سوحيد إن لقى مناقشة وضو مجلسي موشين كلا كياني هسي شيء كان نقشدي ديبوديجشدي يو مجلسي كببيحي يقف أمام أنكو احترامنا marka maanta munaaqasho oo laga furaayo mooshinkaasi ma jiro xukuumadda sida hawsheeda wadanaysa kalsoonidii ka noqoshadii waa laga noqday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم horta tiifiyaha kaltan maalmahan tiifiyaha ayaan ka daawanahay idaacadahan ka arkayay waa soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay waliba waxa iga muuqday wariyaal macruuf oo aan aqaano oo ka mid yahay wariye nadaara iyo reeg aan aqaano ayaan ku arkayay waan soo dhaweynaynaa in saxaafadda noo badato oo maaragtay runtii maadaama saxaafaddii horey loo sameeyay wax badan tareen haddana waan soo dhaweynayaa dhinaca kale mooshinkii xildhibaanada ay keeneen oo 93 xildhibaan ay keeneen xildhibaanadii markay dib armihii u eegeen duruufaha fiiriyeen rabitaanka shacabka arkeen yacni marxaladda dalka uu marayo markay fiiriyeen si istooda ah ayaga isla hadlay maaragtay ugu tanasuleen sidaa daraaddeed ay xukuumaddiina ku badbaaday mooshinkeena looga noqday adiga ma waxaa ka mid ahayd xildhibaanadii mooshinka keenay mise ku weydiidanaa aniga waxaan ku jiray dadka dhadhaxaadinta ka waday oo lahaa xukuumad ridid waqtigan hanaga ahaato aniga mooshin ma saxiixin mooshinka horta lama diidi karo waa maaragtay waa arrin dastuuri ah xildhibaanka maaragtay waajibaadkiisa ay ka mid tahay xaq buu leeyahay lama diidi karo laakiin si walaaltanimo ah xildhibaanada u codsaday oo arrintan waqtigan haddaan xukuumad ridno wixii caalamka maaragtay nir garab taagnaa iyo bulshadeeni maaragtay himigeedi maanta soo nooladay yaa arrintan dhabarjab ku noqonaysa arrintan hadda la joojiyo xildhibaanada yani saas fikradaas qabay soo jeediyay baan kamid ahaa runtii xildhibaanada Soomaaliyeed oo u mahad celinayaa taladaas waa naga qaateen si maaragtay niyad sama ah yaana loo qaatay mooshinkana saas maaragtay ku baaqday in cod loo qaado xildhibaana marka mudanayaashii baarlamaanka ka tirsanaa iyagu dhaliisha waday maxay dhaliilsanayeen ay xukuumadda ku arkeen runtaas ayaga la weydiinayaa kolley xildhibaanka asigoo wax dhaliilin mooshin iskama soo qoro aniga qoraalkooda hataa ma arkin kaliya aniga markii aan arkay arrinta inay culeys badan leedahay oo soo socoto muddada gaaban xukuumadda jirtay iyo duruufaha dalka uu marayo kaliya aniga waxaan la qabsaday aniga xildhibaano badan walaalayaal arrintan xukuumad ridid wixii toosin ah oo la dhaliilsan yahay aan toosino laakiin xukuumad ridid oo hadda zero laga bilaabayo hanaga ahaato taasaan u jeedinay runtii xildhibaanada si sharaf leh ay nooga ogolaadeen saasay ahayd waayahay dhinaca kale haddii aan fiirno xildhibaan aadan waxaa jiray in guddoonka baarlamaanka uu sheegay 93 xildhibaan ee dooda keenay in qaarkood ay laabteen xildhibaan dayib oo isna kamid ah mudanayaashii halka ka hadlay wuxuu sheegay isaguna in 13 wakiil ay jiraan laakiin 93 aanay baabeen arrimahaas marka sidee la isku waafajin karaa mooshinkii maanta ma dhamaaday mooshinka mas'uul waa jira mooshinka sidiisa sharciga waxaa noo qoran heer hoosaadka iyo maaragtay dastuurkuba waxay qabaan 55 xildhibaan oo taageersan in la helo iyo sharci ku noqonayaa mooshinka haddii marba 55 ka hoos maro wuxuu burayaa sharcinimadiisa mooshinka xildhibaanada waqti ay rabaan mooshinka waa soo qori karaan laakiin hadda maadaama 55 dadka yar ay ku soo hareen saas uu ku buray hadda laakiin xildhibaanada awood u leeyihiin waqti rabaa way soo qori karaan laakiin kii hore u qornaa hadda saas u dhamaaday baarlamaankii hore ee kumeel gaarka waxaan ognahay in dhaliilo badan loo soo jeedinayay masuq ka mid ah waxyaabo loo soo jeedinayay baarlamaankan kalsoonidiisa aad bay u adkeed wixii hadda ka horeeyay marka ma la dhihi karaa mooshinkan iyo murankan wuxuu hoos u dhigayaa niyaddii shacabka iyo kalsoonidii caalamka horta baarlamaanada hore u jiray hataa xilligii kumeel gaarka runtii
waa wada humaa lama dhihi karo bani aadan hadduu bato qof xun iyo qof fiican way ku jirayaan laakiin marxaladda lagu soo toosay yaan caadi ahayn saasa macnaha dadka xibil waa xun yahay inta badan taasa keentay marka baarlamaankan ilaa hadda wax ceeba kama soo bixin tan hadda maaragtay waa waajibaadka ay leeyihiin inay maaragtay kalsooni xukuumad siyaan kala noqdaan waa waajibaadkooda lama dhihi karo haddii marba mooshin magaciisa soo qaadeen baarlamaankii waa ceeba way lama dhihi karo haddana waa u jeedaa ayaga oo la qasbin ayaga oo corruption la bixinin ayaga oo wax la samaynin intay shireen xildhibaanada keligood hataa guddoonka soo faragashanin yay ka hareen waxay yidhaahdeen duruufaha jira awgeed aan tanaasulna isku raaceen ayagoo dhaxdooda la isu akhyaareeyay taas naftarkeeda ay ku tusinaysa in dadka ay fiican yihiin wara madax bannaana jiro oo saxaafaddu helayso kulley war lama waayo in dhinaca xukuumadda ay dadaal la samaysay oo ay ku dadaashay in la gaabiyo mooshinkan iyo murankan hadda jira arrimahaas maxaa kala socotaa xukuumadda maadaama ayada la saaran yahay xildhibaanadan waa walaalahoodii waa la hadli karaan laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa barnaamij oo waxyaalo horey la isku barabuqaami jiray corruption baa jira iyo waxaas la dhihi jiray inay waxaas jirin oo wali baarlamaanka dhaxdiisa xildhibaanada ayaga taladan ka timid dhaxdooda maartay wada tashi sameeyay fadhi badan ay sameysteen waxaynu isku soo afgarteen in mooshinkan laga noqdo waayahay su'aal kala raba inaan ku weydiiyo dhawaan Jaylan Nur Ikar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad isagoo fadhiga wuxuu sheegay in kuwa maqan xildhibaanada maqan go'aan laga qaadan doono haddii aanay degdeg u soo laaban taas ka waran ay arrimahaas haddii aad la socoto كل برنامج الشرعي وليه waxyaalo oo xildhibaanka haduu sameeyo sharci qabanayeen way jiraan marka armahaas gudoonka ayaa laga la xiriiraya aniga xildhibaanan ahay inkastoo shuruucda aan aqaano aan way arag ku ahay haddana wixii maartay xildhibaan waqtigiisa imaan waayay shaqadiisa beer daray wixii sidaas ku saabsan gudoonka in la weydiiyo ku fiican tahay waayahay dhinaca kale wali waxaa jirta su'aalo kale oo ku saabsan dhinaca waxqabadka xildhibaanada xildhibaanka soo mudanaasha ka tirsan wuxuu si gaar ugu qotomaa dhinaca beelaha uu ka soo jeedaan ay ka kala soo jeedaan marka dhinaca waxqabadka murano badan jira hadda gobolada dalka oo kale Kismaayo oo kala kamid arrimahaas ka waran runtii horta xildhibaanka waajibaadka saaran waa labo mid guud ahaan dalka dhan ay ka saaran maartay xildhibaanka ka saaran yahay waajibaad dastuuri ah xuquuq lagu leeyahay oo dalka dhan uu ku leeyahay shacabweynaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin mid gaaran way saaran tahay xildhibaanka meesha laga soo doorto deegaanka uu ka soo jeedana waajibaad gaar ah hadana ka saaran taas naftarkeeda la isku ma ceeban karo dalka sidiisa hadda isku wiil isku wada furmin waxyaalaha hadda xildhibaanada ku waantaween oo maaragtay arrimaha ka tanaazuleen ay kamid tahay in deegaanada qaarkood wili maaragtay argagixisada ay haysato oo aan amaan ahayn marka taas maaragtay dhabkaas waa jira arrinta Kismaayina kulay aniga shakhsiyan ama qofkayga waan ka cadaystay hore aan u sheegay anigu taasna waxaan qabnaa federal system in dalka laga hirgeliyo aad iyo aad aan u taageersanahay waa dadka u soo ololeeyay wiligood maaragtay arrintaas aan in federal system u hirgeliyo u ololeeyay ma kamid ahay wiliba in la hirgeliyo la dhaqangeliyaan qaba laakiin meeshaas waxaan nooga muuqata in dadkii deegaanka culeys badan oo banaanaha ugu yimid la saarahayo faragelin dawladan ay ku jiraan dawlad kale iyo dad Soomaali oo deegaanka kale ka soo jeedo ayagana culeys badan ku hayo oo dadkii deegaanka taladooda loo daynaynin iyo dawladda Soomaaliyeed naftarkeeda waajibaadkii dastuuriga ayada ku lahaydeen maaragtay in culeys badan la saarahayo faragelin badan ay ku jirto marka Soomaaliya dhibaato waa ka daashay Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta nabad iyo horumar ay u baahan tahay dagaal dambe kooxaysi qabyaalad in maaragtay deegaan qabaa'il maaragtay si gaar ah maaragtay intay isku baxaystaan qabaa'il kale u duleeyaan waxaas oo dhan anigu waxaan leeyahay laga waantawo dadka deegaanka iyo dawladda Soomaaliyeed talada ha loo daayo taasaan leeyahay xildhibaan su'aalada ku khusaysa jeclaan lahaa waqtigan aad ku gudbisay oo yani ku yariyaa sidaan dareemayo waxaad qayb ka ahayd maamul dhisitaan gobolada Baay iyo Bakool iyo kuwa kale oo 6 gobol ku dhawaa horeyna inaan arintaasi kala hadla u maleynaa marka arrimahaas xigay ku dambeeyeen arrimahaas aniga baydhow hadda waxaan soo joogay 2 bilood ku dhawaad way jirtaa in maamul deegaanada ay sameystaan anagu waxaan qabnaa 6 gobol oo maaragtay koonfur galbeed la isku yiraahdo inay iswada raacaan baan qabnaa maadaama dadka degan dad iswada raaci karo oo walaalo ay yihiin يعني deegaan kasta beel baa u badan laakiin haddana Soomaali intii isla degan ba maartay tala gaar ah iyo waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn gaar ah marka arintaas waan wadnaa ma rabno in xoog la isku maquuniyo arintaas oo wada tashi maartay ku imaanayso dadka deegaankaas wada degan maartay ay ku tashanayaan inay ku dimaado 6 gobolna la israaciyo hadii la yiraahdo waa la kala saaraya waxa imaan kara in deegaanada la isku qabsado maartay deegaankan yaa degan sidii loo kala saar maartay dhibaato badan ay ka imaan karto marka hadii yani ay israaci waayaan inay noqoto maartay nidaam
li yaqaano oo muuqdo oo yani sidii lagu heshiilo looga kala baxna waa la sameyn karaa laakiin waxaan isleeyahay dhabka lixdaas gobol wuxuu ku yar yahay dadkoodan waa dad nabadeed haddii Soomaali meelo kale ka timid ama yani dawlado kale fargelintooda laga daayo aniga waxaan isleeyahay lixdaas gobol dadkooda waa heshin karaan maamul waa samaysan lixdaas gobol cadeey adigoo raalli iyo bal sida adiga aad u jeceshahay inay wax u dhacaan aniga lixdaas gobol waxaan ula jeedaa Shabeellaha Hoos Jubbada Dhexe Jubbada Hoos Gedo Baay Bakool in la israaciyaan jecelahay aniga lixdaas gobol xoog ma aha waan ku daray lixdaas gobol aan ku iri in maaragtay dadkooda wada tashi ku madoowaan maamul wada samaystaan aniga saasan u soo jeedinayaa waxaan leeyahay lixdaas gobol taladooda haddii ayaga loo daayo oo dawladda uun maaragtay ayaga loo daayo inay israacayaan maamul raale lagu wada yahay ay samaysanayaan oo nabadi ka saldhiganayso aniga saasaan aaminsanahay ugu dambeyntii shaqooyinka gudiyada baarlamaanka ilaa hadda sidii u socdaan hadda faafaahin guud shacabka ka siiso iyo talada ugu dambeysay ee aad u jeedi lahayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee xildhibaan ku tahay horta gudi kasta waajibaadkiisa heer hoosadku ku cad yahay gudi haddii shaqadiis waa qabsan waay leeyahay ma jiro shaqadooda waa haystaan xaqiiqdii intuu baarlamaanka xirnaan waa haysteen intuu markuu furayaan waa haystaan taas sidaa weeye dhinaca kale aniga ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliyey dhibaato nagu falan iyo maaragtay in barakac dib u dhac oo aan caalamka kaga harnay waa nagu dhacday waxaan ugu bixi karnaa inaan midowno dhabka meesha naga hayo aan isla fahanno aan walaaloobno aan maaragtay kalsoona aan walaaltanimo oo maaragtay ku jirin oo aniga dhaxdeena maaragtay si saman si cadaalad ah aan isugu guurno wax maaragtay xuquuqda naga wada dhaxaysa qof kasta Soomaaliyeed xuquuqdiisa iyo sharaftiisa loo qiro taas lagu gaari kara dhaxdeed ihaano iyo isdulmin iyo maaragtay Sadbursi la iska daayo dawladnimada iyo dalka inay naga wada dhaxayso walaalo leeyahay aan la kala fadl badnayn inaan aamino saasan qaran ku noqonaynaa aniga ummadda Soomaaliyeed taasan kula dardaarmaya